Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Misku aragtay shanqar ama guux si joogto ah looga maqlo dhagaha, shanqartaasoo u eg sidii roob da'ayoo kale, ama sida guuxa gariirka taleefanka oo kale, ama sida garaacista albaabka oo kale, ama sida dhawaaqa dabaysha oo kale, ama sida foorida ama shanqarta saliidda markii wax lagu shiilayo oo kale, ama garaaca wadnaha in laga maqlo dhegta oo kale. Guuxaas badanaa ma dareentaa habeenkii markuu jawiga dego oo la wada hurdo? Haddii jawaabtu haa tahay, casharkan adigoo kugu socda ee ka faa'iidayso lana wadaag bulshada. Magacaygu waa Dr. Mahdi, waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalada East End. Ciladan waxaa afka qalaad lagu dhahaa tinnitus. Waa cillad aad ugu badan bulshada, waxaa la qiyaasaa boqolkiiba 15 inay isku arki karaan. Waxyaabaha ugu badan ee keena guuxa dhegta waxaa ka mid ah 1. Xuubka dhegta oo dhaawac gaaray dhawaaq xoog leh awgii sida qarax ama shanqar la mid ah. 2. Maqalka oo daciifa markaasoo la isku arko guux dhegta laga dareemo. 3. Dhukay dhegta xiray ama qoyaan ka dhashay caabuq raagay. 4. Daawooyinka qaar sida xanuun baabi'iyeyaasha ibuprofen, naproxen iyo aspirin, qalajiyeyaasha qaarkood, daawada malaariyada ee quinine, daawada dhimirka ee Xanax, iyo daawooyinka kansarka qaar ka mid ah. Badanaa guuxa daawooyinka ka dhashu wuu istaagaa haddii la joojiyo daawada keentay. 5. Jug madax ama surka kaa gaartay taasoo saameysay dareensidayaasha dhegta iyo maskaxda u kala goosha. 6. Cudurrada qaarkood haddii aad la nooshahay sida dhiig la'aanta, dhiig karka, macaanka, goonjabka, tayroodka, cilladaha kala goyska daanka iyo cillado aan badnayn laakiin ku dhaca dhagaha. Cilladan siyaabo kala duwan ayaa loo xalliyaa taasoo ay ku xiran tahay waxa guuxa kuu keenay. Sida awgeed, fadlan la soo xiriir dhakhtarka ENT-ga oo ku takhasusay cilladaha dhagaha ku dhaco, kaasoo aad xarunteena ka helaysid maalin walba. Wixii su'aalo ah noogu reeb qaybta commentiska ee muuqaalkan. Fadlan faafi fariintan, waana mahadsantahay.